Marka laga hadlayo hogaamiyayaasha qarnigii tagay ee Afrika, magaca Maxamed Siyaad Barre wuxuu leeyahay miisaan culus, sababtoo ah wuxuu ahaa hogaamiye muddo dheer hogaamiyey dal ay ka jirto kala duwanaansho qabiil, deegaan iyo dan siyaasadeed oo mar walba isku murmaya. Intii uu xilka hayay waxaa ka muuqday hal ujeeddo oo uu marar badan ku celceliyey, taas oo ahayd in uu dhiso dawlad Soomaaliyeed oo casri ah, isku duuban leh hay'ado shaqeeya, kana gudubta baahiyaha midaynta iyo horumarka. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee maanta lagu xusuusto waxaa ka mid ah hirgelintii qoraalka farta Soomaaliga, taas oo ahayd tallaabo taariikhi ah oo si qoto dheer u beddeshay maskaxda bulshada, waxbarashada, maamulka dawladda iyo habdhiska wacyiga dadweynaha. Farta Soomaaliga waxay noqotay aalad midaysay luuqadda, kobcisay waxbarashada, kor u qaaday shaqada warbaahinta, isla markaana ka dhigtay in dayarta Soomaaliyeed ay si fudud u helaan aqoon iyaga oo aan ku tiirsanayn afaf qalaad. Sidoo kale waxaa jiray dadaallo xooggan oo lagu dhisayo hay'adaha dawladnimada, kor u qaadidda ciidan qaran oo midaysan, tababaridda kaadiriin dawlad oo xirfad leh, iyo abuurista nidaamka maamulka oo isku dayaya inuu gaaro heerarka dawladaha casriga ah. Intii uu kacaanku jiray waxaa jiray mashruuc ballaaran oo lagu dhisayo kaadir dhalinyaro ah oo ku shaqeeya mabda'a daljirka, kuwaas oo lagu tixgelinayay lafdhabarka dawladnimada maanta la sheegto. Haddana taariikhdu mar walba waa laba weji. Waxaa jira dad ku ammaanaya dadaalkii la geliyey isku xirka ummadda, kobcinta aqoonta iyo dhismaha qaran Soomaaliyeed oo leh hay'ado muuqda. Halka kuwa kalena ay dhaliilaan nidaamkii carqaladeeyey xorriyadda siyaasadeed, xadiday codka shacabka, oo mararka qaar adeegsaday awood aan loo baahnayn si loo ilaaliyo midaynta dalka. Intaasi waa dood furan oo ay bulshadu weli ka fikirto, kuna kala aragti duwan tahay. Haddaba su'aasha muuqata ayaa ah, dawladda damul jadiid ee maanta jirta, ee sheegta inay tahay dawlad islaax iyo dib u habayn ku socota, maxay ka dhaxleen nidaamkii kacaanka? Maxayse Soomaaliya iyo dawladnimadeeda ku soo kordhiyeen? Marka aan eegno taariikhda dhow, waxaa muuqata in dawladihii dalka soo maray ay ku adkaatay inay la yimaadaan hannaan dawladeed oo leh miisaan la mid ah kii kacaanku dhidibada u taagay. Waxaa la arkayaa hay'ado badan oo weli dib u habayn u baahan, hannaanka dawladnimo oo aan weli gaarin heerar xasiloon, iyo bulsho weli wajahaysa caqabado amni, dhaqaale iyo mid bulsho oo culus. Dawladda damul jadiid oo ku faanta dib u habayn, waxbarasho, dhaqaale kobcin iyo xiriir diblomaasiyadeed ayaa lagu dhaliilaa inay weli ka gaabisay dhismaha hay'ado qaran oo ka madax bannaan saamaynta siyaasadda, isla markaana u shaqeeya si hufan. Waxaa jira dad aaminsan in dawladnimadu aysan ku dhismin hadal iyo qorshe keliya, balse ay ku dhisan tahay nidaam adag, tababar joogto ah, ciidan qarannimo leh iyo kaadir aqoon leh oo aan siyaasadaysnayn, kuwaas oo dhammaantood lagu tilmaamo raadadkii kacaankii askarta. Sidaas awgeed, marka aan isbarbar dhigno kaalintii kacaanka iyo dawladnimada maanta, waxaa muuqata sawir isku dhafan. Waxaa jiray wax la dhisay oo markii dambe burburay, waxaa jiray wax lagu guulaystay oo weli la hayo, waxaana jira waxyaabo badan oo la sii dhisi lahaa oo maanta aysan jirin. Maxay dawladihii dambe ku abaalgaleen dhaxalkii dawladnimo ee kacaanku ka tagay? Soomaaliya ma u tallaabsan kartaa mustaqbal ka wanaagsan iyadoo ka duulaysa casharadii hore, mise weli waxay ku socotaa waddadii halaq maraynka ahayd?